anigoo ah Maxamed Axmed Jaamac kashbac ku magac dheer maansadan oo magaceeda la yiraahdo nafyi amar qaado kana hadlisa awoodda Ilaahay iyo cabsidiisa waxa ay ku bilaabaysaa sida tan nafyi amar qaado Ilaahay ka dhowrso alli kugu uumay uur hooyo dhexdiisa ayaama gadaala amuurahan dhowra adoon kasta siiyay irsaaq helistiisa islaam iyo gaalo miduu ku aroori arwaaxda dilkiisa amaanada mowdku ayaantu ka qaad adduunka Allah kaliya leh alleelka habeenka iftiin iyo maalin intuu amar siiyo ahaw ku yiraahdo nafyi amar qaado adeec rabbigaaga awoodna Allah kaliya leh ka uumay cirkaale abuuray dhulkaale aqoonta baxshaale nafyi amar qaado Ilaahay ka dhowrso Allah ummadoo dhan intuu eber yeelo Allah hari doona inta dabadeedna abuuris dambeeto ku soo unki doona islaam iyo gaalo ayaanta qiyaame abaal marin doona nafyi amar qaado adeec rabbigaaga intaad ifka joogto wixii ku asiiba adoon afariirin ibliisna ku jiidan Ilaahay la kaasho nafyi amar qaado adeec rabbigaaga intay ajashaadu adduunyada joogto ayaamaha kooban adoon ku asqoobin jeclaysan adduunka haddaad adeedooto makhluuqa Ilaahay amaan gelin weydo waxaa iman maalin Ilaahay hortiisa intoo lagu keeno eedaadu cadaato nafyi amar qaado adeec rabbigaaga ilaali wanaaga sameena ihsaanka ishaado horteeda waxaad ku arkayso afkaagu ha sheego maahe amar qaado adeec rabbigaaga uurkaaga nadiif islaamka u hiili Ilaahay xasuuso tasbiixda afkaagu ayaanu ilaabi maahe amar qaado adeec rabbigaaga ayaamaha mowdka xabaashiyo iilka si uu imtixaanka afkaagu u sheego nafyi amar qaado adeec rabbigaaga sidoo Allah sheegay kitaabku iftiinshi ruuxii ijtihaada wuxuu alla siiyay jalooyin iftiin leh mowdaan imanaynin xayaato abiida kala garo ifkiyo aakhira rasmiya kii aayaroon alla caabudo rasuulkana adeec nafyi amar qaado Ilaahay ka dhowrso adeec rabbigaaga